soo dhawaada dhammaan asxaabta Kamaal iyo dhammaan saaxiibada qaaliga soo dhawaada war life uu batay life soo dhawaada niyo soo dhawaada ashar garayniyo soo dhamaantii soo dhawaada Kamaal saaxiib salaam iyo dhamaantii soo dhawaada niyo soo dhawaada arma badanada ogeyn balay dhishay wariyaa dila la Abdurrahman Tahir Mudi salaam salaaleykiko anwar saaxiib waa ku salaamay anwar rumi saxaab ku salaam dhamaantii soo dhawaada aweyska caawa soo qabanaya saaxiibe barnaamijka noo shargalay soo qabanaya aweyska caawa isla baasha la magaratay Kamaal saaxiib dhamaantii soo soo qabanaya saaxiib oo soo qabanaya barnaamijka noo shargalay marka hore barnaamijku waxa weeye Abdimaalig Coldoono caawa jigjiga iyo deegaanka Soomaalida ee Soomaali galbeed si kaliya laab lagu soo dhaweeyay Karbash kaftan waxaad rabtaan baa ku jira barnaamijka caawa noo sheer gareeyay Cabdirasaaq Taahir inaad qado saako saaxiib waa ka qaaday aad ba kaaga qaaday nadir raaqiya waa ku salaamay boqortooyo dhamaantiin Aisha Farax منودي نيجا ما قاعد كده دماتي كله لعبة إني سلامي أو مان سوقل في عنا ولا العاشر دماتي منودي نيجا سلامي كرو دماتي قاعد بإني سلامي صاحب بدر غالي قام ملك ستوت كتشوك تاني الدنيا ده فيه وحوي يعني كفتن كي حرابة دي بكوتشرتها وح كوتشرة متقنع الرمى بدن أنك هذا إنه هي كوتشرة عدي أباهنا ولا سوق بنيا ولا سود وينيا mataqaanaa halkan mikrofoonka lagu casuumiyaa cidii u baahan inay mataqaanaa halkan de ka hadasho oo hadalkeeda ka dhiibatana waa la soo dhaweynayaa awgiin maskax garaadka laga gubiyay oo ogaadeenkii aga hada gaalku dhalay wareede baalka sheergareeya haba la yaabay aga oo mid kale qof walba mid baa wuxuu yiri moogtahay hadda ka hor baa jijiga meelaha ka hadlanay waxa weey nimanka ma taqaana saaxiibada ogaadeenku waa niman aad u qosol badan mugta hadda ka hor baa mid ogaadeena baa wuxuu yiri waxa dhacday birgii ma taqaana birgii ay nimanka ay ahmaarada wadanka haystay odayga xayla salaasi birigu odayga xayla maryam birigu wadanka haystay baan ogaadeen oo geel iska eegnay ayaa waxa dhacday mid ahmaara oo show mid ahmaara oo wuxuu arkay meel jid ku xaaray oo walaykum salaam saaxiib ciid Cabdi Waahid boqortooy ninka ogaadeenkii geel jiri wuxuu arkay nin ahmaara oo maanad arkiniyo kamaradii aaway wuri war maanad arkin dadku way arkaan xageed ka baxday waxa weey sheekada nii waday waxa weey ninkii ogaadeenkii geel jiri iska haba birigi ninkii oo nin ahmaar oo meel iskaga xaaray buu arkay moogtay deetna markaas yiri aga awowga la gub war waa gaal uu xaari ho geel jirayaal kale wacay war waa gaal xaari alla waa gaal uu xaari u dhaay moogtay soo ninkii ahmaarkii markuu xaarkiisii dhameystay meeshii ka kacay suu intuu dheengad qaatay buu labada dhagood ku gooyay ninkii geel jiraha سوري أوه قال لقبي هندل ما كان سوري هذا ما قال حاربا مد بوشة موقته يقول ورنيكي قال كمدك حايلو حاربا ملو قلت تجيب فيديو أو ولا يقول موقته أول بلد ما كان سوري هذا أوه قال لقبي ما قال حاربا لورد ولا يقول موقته ساو مركب حوي إنت سنوا كفتن لما كانوا قاعدين كصاحبه ولا كفتن أنا عيد عبد الواحد بسوق بنيا عيد عبد الواحد بسوق بنيا لما أنت عيدو قبا برنامجي قبا وعليكم السلام soo galay hadda soo galay war waxaan ku wari ugaas oo salaam ya saaxiib cabdi sheekada ma la socotay adeerkay markuu ninka xaarayo dilay mad ka sheekeynayse sheekadii ninka ogaadeenka ninka gaalka xaari u tagay baan ka sheekinay warrin marka barnaamij inaad rafiiqeed baa maalin guur baan u jeeday raa maalin ma too socay maxaad ugu dawgalay rafiiqeedka maalin dhaweyd rafiiqeedku way isqalaan ma waxaan aan ugu sheegay ma taqaanaa nimanka iyo reer kuwa la dhaama aragtay reer soo sheeg shabeelle kuwan degan waxaan dhahaa meeshan تلمجه عبد الله ما gobolka shabeelle waran ma kala aqaan lafaaqay la degan laakiin gobolka shabeelle ku degay reegada reegada bay iga baxsatay reegada iyo rafiiqeedku
way ma aad lama haystaan oo way budku bay rogan iyo nimankaas aad isku fiicin moogta markaas mid hadda ka hor mid raafiqa reegodaya mid reeg aba Facebook u sameeyay suu gabadh online buu arko ula hadlo suu wuxuu qoray hi buu qoray moogtahay markaas hi tu soo qortay suu yidhi hi 3 markaas igu qos hadda aga gaash maxay ku qosli buu yidhi hi 4 teedi ma noo sii wada buu yidhi moogta marka xasuusisay berigeeni jigjiga joogna waa nin baa toos uga yimaaday fiiqdi caadi xamaru toos uga yimid oo midna yuu boolisaa u dhiibay mootu u dhiibay waa jigjiga oo garan qarax kuleylku naar markaasuu 12 duhurnimo sayidka hortiis ka soo dhaqaaqay bahal moota aan u wataa jaakeedu suusada u jiido halka u joogo liider u xiran yahay dhakhtarka weyn hortiisa markuu madaxii baabo baashi koyl ma fadhiilahay way karaysaa oo malaynay ii soo orod buu yiri koyl ma fadhiilahay nooga waa qosol nimanka reer gobolka horta nimanka ugu ilbaxsan waa nimanka reer dhagax bur maaragtay hadda ka hor baa mid meel oo mad garanaysaa cafeteria dhakhtarka horteeda ka soo horjeedi jirtay annagu halka faanti wax ka cabnaba mid baa gabadh baa meesha marka gabadh buuran baa oo meesha fadhido gabadha marka la xamanaya moogta nimanka waxay ku hadlayaan xataa ma fahmisay dhagax burka hadday isla hadlaan maaragtay alaabtooda lama fahmo saas inta isku eegeen bay dhaheen aga ooga iska rogadiina macallin cabdullaahi baa la moodiyay buu yidhaha moogta macnaha alaab buu ka hadlayay gabadhu ka hadlayo gabadh buuran oo waxay iska nimcaysan oo meesha joogtay moogta marka waan garanayaa mid baa maalintii soo fariistay garaa berigii hore buu yidhi aniga magaalada imid digaagadu aad bay baaran lahayd hadda maxaa ka rifay buu ilaan gabadha wuxuu leeyahay xagga dambe eber weeyaan dhagax buurka lama fahmay barnaamijkeena wararta barnaamijka intaas kaftan bay ahayd barnaamijkani waxaan ku talagalay odayga cabdimaalig coldoon ahaa oo nin aad samafala ah oo dadka bulshada Soomaaliyeed aad uga dhex muuqda waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga qabri bayax ilaa Jigjiga ilaa waxaan ku deegaanka mid buu marayaa burco shalay markii uu mataqaanaa taliskii Tigreeg iyo Cabdile ay joogeen ninkaas burco ku noolaan kar laa iyo Hargeysa soo qabtay ka soo qabtay ilaahay maantana xurriyad isagoo halkii santarkii halkii yaradeen looga leexan jiray xaafadeen saraamis isagoo santarka saa u dhex taagan oo saacaasha u taagay sidii awr qoora aga awgigu bambarta ku arkay ayaa caawa Facebook la soo dhigay in yar aan ka dhex gala warinaada reyaalo anigu cid kale ma aqaan inta ogaadeeno sheer gareeya barnaamijka Cabdirsaaq waa nin aan aad u jeclahay waa wiil saaxiibkay ah oo wiil aan nolol soo way qaadanay waa gobta Soomaaliyeed waa dadka Soomaali ugu dhagartay yar يعني مركا أنا أقول البهانتي يعني مقال سمرون وين استاجا والله ورنيا لولا مركا ما وكالي عيد إذا أنقول هذا كالي واحد كويدي مركات وصلت من يوروب تبغى وقاعدين ماشي لقيت تبغى وقاعدين نتكلم وأنا أكسبك واحد أركيبه كبدي أنا وقاعدين كأدو قدوينه ولا صارن كبدي وقاعدين كتساع صوتبه أدو قدوينه وصارن أجا أو اللي جوب كني ما حد محمد كي أنا لفتايش محمد عمر كيبو أيوب بدل أنا ربنا جيجيجا جوجي والله وبالله والله عيوليهم بامبرتي أنت جيجيجا جوجي بان عيوليهم ليو تقول مجيء وحاس ما أقول قبيل ما أقول يوم مركان صوت جاي عادي بقى أنت أنا والله يقول أفتي فش حيتا ضد مكلام أقول مركان أنا لو أنا سكوا قاعدين سمايستا أنا سكوا قاعدين سمايستا أدوكو ضد كان هذا بيسي دقنا يمتي ضد نص بعض هاي أقوياء كصوت ضد كصومالي سمرون يقول بهان توادد كوش رف بدن ليس وحين كعب سنة يا أنا جامعتنا نحن كجبها أنا مريم بس كأولي كده أنا بحس أنا كوميتشي أنا كوميتشي لك مساكيتها هندي النقطة أنا كوميتشي ورنيه هو شيء كذا كوه ذي وحويان أرجع عبد الملك عالدوني ما تدوسه دويكيل الصومالي ده سيدو أرجع دقيقة الصومالي ده horta inaad ero waxa gobonnimada ama raganimadu waxa iska keenaysa ma aha haddad adigana maanta ducfiya oo dib u socdo yaa walaal may waxa la hadlayaa nimankan barnaamijka sheerganaya awgiin maskax garaadka laga gubi ogaadeenku anaa garansay ku sheergalena qofkii walba qaalin geera la siinaya biliis sheer dhah xagga geeli u roon yihiin war halaa la qaybini horta berigi dhaweyd sheekadii baad garanaysaa hal dhashay baa la moodi war hal dhashay baa la moodi sheekadii beri dhan bay daba socdeen waxa weeyaan walaalle gobonnimada iyo sharafta iyo raganimadu waa wax ilaahay markuu ninku dhashay oo ilaahay haybad u siiyo weeyaan Mustafa Cajar waan u mahad celinayaa aad iyo aad baan u mahad celinayaa talaabo aad iyo aad kolle waxay dhahayaan waa jaahuur oo jaahuurnimo ku taageeraya laakiin
inaad yaro ninkaas waxaan leeyahay anigu wallaahi oo bilaahi oo tallaahi anuna ani wax ii tarin una hooyada wax u tarin laakiin wuxuu wax u taray soomaalida deegaanka degto oo dhan wuxuu wax u taray soomaali oo dhan heeskii sharaftii soomaalidu soo celiyey wuxuu soo celiyey wanaagii soomaalidu soo celiyey wuxuu soo celiyey qarankii aad ogeyd ee dhihi jiray yaa Itoobiya anchi fiki aad garan waxaan ku qaadi jiray meeshii maanta Soomaaliya toos oo baa laga qaadaya walaalo marka Cumar geelaha laftiisa Etoobiyaan xabashi horta bari maad garanay oo jijiga noogu yimid anagu halkii dhex joogno uunba odaygii asla Soomaali buu ku hadlay uunbu intuu gafuur weyn oo Kenyatta loo intuu la soo istaagay uunbu yiri Ethiopia li jooj uunbu ka bilaabay ma anaga carruurta Ethiopia ay dhanna wallahi aad baan u garanayaa yaani aad iyo aad baan u garanayaa barigi marka waxa weeyaan walaal waxa weeyaan ninkan anigu waa qof ila ta kala waa qof aan shacabka iska weyneenin Facebook laag buu ku saariyo war aniga waxaan maynaya hadda ilaa 3 cisho kaliisti way gala noqdayba waxaan isleeyahay in afra marka ninkan waa Mustafa waa yaani dad qof aan isdhihi karo wallahi Soomaalinimada ku weyn kulli qof ninku ninkaga ma noqdo walaal markuuna mucaarad yeelan hal mid baa jid aan ka dhex galay ciidow marba meel bay marasay ma ogtahay dadka Soomaalida deegaanada dadba meel bay u marasay haddaad imka xamar oo kale haddaad aragto waxay u maraysaa iyaga nabad goormaad helaysaa nabad goormu dhibaatadan iyo qaraxan iyo waxa Ilaahay ummadda shacabka ka kaxaynaya haddaad imka Soomaaliland meelaha haddaad timaado muuqooyiga iyaguna waxay marayaan goormaad cadaalad kale helaysaa laakiin deegaanka Soomaalida waxay u maraysay goormaad xor naftaadu xor noqonaysaa xorriyad helaysaa hadda waxa maalin waxaan wacay wiil oo saaxiibanahay oo jijiga joogay xaafadda qabaleega sera xaafadda shanaad joogay oo halkii ma taqaana aan ku wada cabbi jirnay bunka fadhi wallahi isagoo ila hadlaya ayuu wuxuu hadlayay sidoo doono markaas igu yiri ma aaminaysaa meeshii baan fadhiyaa adiga tagtay markaasaan ku yiri wareede intaaba ku dago dadkan qabiiladan amga Cabdiile haduu intuu soo dhex istaago meesha maartay centerka magaalada jijiga intuu soo dhex istaaga haduu intuu qayliyo dhaho waar yaa xil ka maqan yahay reer baa xil ka maqan yahay reerkaasi waa dadho reeraha wasiir iska dhaafay xataa oday wala waxa laga yaabaa inankiisa xafiiska biyaha ka shaqeeyo inuu soo kaxayo dhaho kan baan nagu dheeraaday ka saar xilka oo reer kale ugu daro say uga baqeen maanta dad eeg mid baa ku sheegaya wuxuu soo celiyay calankii Soomaalida ee ay lahaayeen ee baarlamaanka Soomaalidu ay ansixiyeen ayuu soo celiyay madaxweynuhu wuxuu soo celiyay heestii dadku ka sinaayeen ee Soomaaliya toos isku tiirsado hal dadkiina taageeranay taageera waligiin wuxuu soo dadka uma muuqdaan waxan wuxuu soo celiyay hospitaalka ugu weyn ee dhaqaalihii ugu weynaa shacabka Soomaalida ay kaga baxday ee laga dhisay ma taqaana xaafadda Soomaaliga xeer diyaaradeed way ka guurtay cidii taqaana laga dhisay waxa loo bixiyo odaygii ehlunaarkii bidaarta lahaa ee dhintay muxuu ahaa maxaa la dhihi jiray mala sanaawi iyadii wasi Soomaalida dhameeyay halkan iyo xamar iyo jigjiga isku Soomaalida inta u dhaxaysaba dhameeyay ehlunaarkii weynaa ayaa loogu magac daray wuu ka bedelay suldaan Soomaaliyeed buu ugu magac daray kulli dad ba eegi doona qabiilku yahay aanu maba garanayo kulli qaar ba meesha malaskii ma dhibayna qaar ba oran doona suldaankani ayuu ahaa reer hebel buu ahaa bay oran doonaan malaskii ku yaalayna ma dhibayna tigraaga ahaa ee beri hore baktiye gaalku dhalay ahaa ma dhibayn waxa la soo celiyay hospitaalka ugu weynaa magaciisa baa la soo celiyay oo loo bixiyay magac Soomaaliyeed waxa ma taqaanaa Cabdimaalig Muuse Coldoon oo shalay aan burco ku noolaan karin oo ay dadka Itoobiya ma taqaanaa ciidamada tigraaga iyo xabashada iyo kulli iyo wixii isla socday iyo Cabdi iyo naadigiisa ay dhigi jireen ay soo qabta oo marna Muuse Shaani iyo marna Siiraanye iyo marba cid loo dhexmaray oo soo qabta xidhada lahay maanta isagoo xor buu jijiga yimid war dadka waxa lagu yiri xor ahaada xorriyad qaata ururadu shira qabiiladu shira waxa doonteen ka shira dantiina ka shira namacaarada wax naga sheega way ka dareen sagaal fursadaha wadanka ee deegaankooda ka banaan iyo deegaankooda saddex wasiir baa laga kiri waxa la wixii halka meesha joogay saddex wasiir baa laga kiri lahay waa kaaga baxay sax inaad aad iyo aad u mahadsan tahay horta niyo muhiimaddu waxa weeyaan dadku markii wax aadan yacni adii maanta oo dhan bali biyo laga celceliyo oo dabaal garin oo lagu sii daayo waa ku dhaxafan marka dadkii walaalo way dhex ordayaan xorriyatul qowlki dad baa si fiican u fahmaya dad baa si xun u fahmaya marka anigu lama yaabayo dadka oo yacni
shaygii xorriyadda ahaa bay dadkii sidaas walaalo u fahmayaan oo dadku way cabursanaayeen qof walba xorriyaddii buu ka hadlayaa marka dad baa si qaab daran u fahmi dad baa qabiilkooda u fahmi dad baa si xun u fahmi laakiin waxaa intaasoo dhan iga daran ani oon la yaaba ka cabdi ilay afka u sii kaagaya cabdi ilay baa wanaagsanaa siira kaas anigu kaas waxaan kale ninkan walaalow horta cabdimaalik qof waxaan aaminsanahay qof walba oo Soomaaliya maanta jigjigan ku noolaan karo oo xor ugu noolaan karo wuxuu yacnihi deegaankeena walaal dadkeenu waa dad wanaagsan waan ku soo kornay labadeena cabdisaaq oo nolol aad iyo aad u badan baan ku soo qaadanay dadkeenu shayga la nacsiiyey waa shayga wadaniyadda wadanninimadii wax xoogay noqotay wadanninimadii waxay ahayd wax dad gacanta ugu jira adigu waxaa tahay qof kale fikirkaaga aaminsan war haddaynu habsaano waxbarashada yaa lihi jiray maxaad qabanaysid 15 daqiiqo habsaantay maxaa kugu dhacay waxaan garanayaa yacnihi kama sheekayn karo noloshan soo marno marka waxaa weeyaan walaalle ninkan anigu waxa kaliya ugu mahadcelinayaa waa inaan maanta intaan ka tago jigjiga aan bartada weydii haradigeed aan tegayo anana cidi dhahayn wax baa tahay qof maanta hadduu cabdimaalig oo jigjiga saadageed ka ahayd oo Soomaaliland ku noolaan kari la'aa uu tagayna wax kale oo dhahan ma jiro marka walaal dadkan kale yaan si qaldan loo arkin xorriyadii waa si loo fahmayaa qof dadku iska cabursanaayeen wariyaasha baa xitaa warka wuxuu yiri wallahi wiil wariya oo saaka ila soo hadlay STV warka anaga wax meelihii la soo mariyay iyo wixii ma jiro anaga maamulnimo ku leeyahay oo nalaf baan ka soo deynaynaa waxaan doonaa ka soo deynaynaa farmaajo ka sheekaynaynaa kuuriyada waqooyi kii ahaa baan ka sheekaynaynaa even waxaan doonaa ka sheekaynaynaa ma xasuusataa ma taqaanaa deegaanka ma xasuusataa niyow inuu ma taqaanaa inta la iskugu keeno dadka hoolka shirarka inuu cabdiile dadka dhexdeeda ku dhex dhirbaax jira ma xasuusataa isaga laftiisu beriga ardayda secondary-giisa u dhirbaaxay xasuustaa aad iyo aad baan u xasuustaa aad iyo aad in adeer marka qof kale soo qabo anigu waxaan ku leeyahay cabdisaaqo dalkeena dib baa loo noqonayaa waan ku leeyahay qof kale soo qabo aad iyo aad baan ku salaamaya aad mahadsan walaalkay نويا واحد جت متقنا عبد المالك موسى الضمر تيجي وتقف كالرجع هذا اللي بنتي صغير متقنا والله بالله نعس ما تحنا هذا النيك الرجع اللي بنتي صغير عبد المالك شيخ موسى الضمر شلي الدولة شلي ما تقنا ديجان كاس صومالي ده إيه متقنا صومالي قلبي عم الدولة ديجان كاس أيضا والله بان كبر على التلفزيون أما إذا عاد سود دين كرت أي سنتشرين oo labada shacabka dadka la gumaaday iyo wixii ka dhacay iyo wixii dad la haystay wixii ma taqaana dadkii dabada u dhiqi jiray ee ma taqaana ee lacagaha ku qaatay waxa koow ka ahaa kuwan maaragtay universals kale tuugta universals kale koow kii afka futada dameeraha weeka fuqayubna oo BBC ka shaqeyn jiray maxaa gudhuga kii maxaa la magaciisa cadosh kii gudhuga cadosh iyo universal TV haddii deegaanka yimaadaan kuwaas horta halala tiigsado iyaga cadaalad halala tiigsado tuug dhashay oo lacag ku qaatay xataa barnaamijkii maalintooda cabdiili baa la dilay waa la jir dilay jaranjartaa laga tuuray ilaahuma saf inta laga gala la hurgufo u karis maa la hurgufo baan kuri dadku xaalka cusin jiray iyo dadku qaaqaawin jiray iyo baalku isku sawiri jiray wuxuu isku sawiri jiray mataqaanaa dumarka wuxuu yidhi waa dumarka tii wuxuu yidhi tii diiday in la waso waa maxay diid buu yidhi waa nabadiid tii wuxuu yidhi ragga odayaasha intuu keeno odayaal waaweyn oo lixdan dhowr jir intuu keeno mataqaanaa intuu hoolka soo joojiyay wuxuu ku dhihi jiray kaalayo waxaad dhahdaan arigan wasi jirnay ku dhaha acuudu billah waxaa arkay oday weyn oo ribaan wasay iyo garweyno anagu dee agal laxuun baan wasi jirnay والوحاس عدوش نمنكاس توك دشبن عبد المالك مصعدون والله بين اللي مش يجي يدون من صحافات كهذا شاكرين او وريه كهلا جيرن او تلفزيون تي كرا جيرن او اذاعات كورمي كرتا جيرن او بي سي هير waxay gaadhay dadka inta qori inta madax cadoosh aftoole kan afka fuftada dameeraha uga eeg maartay dameeru markay xaaraya ninka fuftada afka uga eeg maartay cadoosh maartay ninka wuxuu ahaa oo soo qabanaya raqi walaal cidii inay barnaamij ka qayb qaato rabta farta soo tagto عدوش وحوها نينك قفكي مدح حبد اللي جاي نينك الشركة سوب اللي ميبا قف مدح حبد لجاها لجا قبطه
xageed geli doontaa kulaha xageed geli doontaa maxaad weydiinaysaa maguskayga jiqi waa xageed geli doontaa kulaha naag dhalay waxa weeyaan mataqaanaa isagoo xabad madaxa laga hayo ninkii in dadka la wareysta keenay buu ahaa tuug dhalay buu ahaa oo caloolo weyn buu ahaa kii BBC ka tegay kudhuga ninkii keenay buu ahaa qof xabad madaxa laga hayo BBC inay wareysta ninkii keenay buu ahaa University TV nimankii waxaan ka shaqeyn jiray waxaan oo dhan ka shaqeyn jiray oo soo qabanaya walaash soo qabanay tiri gabadhaas bay soo qabanaysaa hadda soo qabso mayga soo dhaw barnaamij sharqeeyay iyo meel kasta gaarsiiyo xaguu jooga oramaya السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كمرة دورتي دي مولا soo dhaw وايو dadka kale istus maxaad soo barnaamijka lama qayb qaadanaysa maxaad ka baqaysaa hello mana maqashaa gabadha khadka ka xambaan maleen cid kale rabtay inay barnaamijka qiiq baato soo dhaway barnaamijka share garay war cidaan ninka ragga hadaanad ma taqaana aanad qirin wanaagiisa waa aad wax qiri wallahi ma jirto nijaas leebata hadad ninka ragga wanaagiisa hadaanad qirin ninka ma taqaana hospitaalka ugu weyn waxa ku baxday lacag dhowr iyo waxaan ku 100 milyan lacag ku dhow ayaa ku baxday hospitaalka ugu weyn wuxuu ka kooban yahay inta iyo dhowr boqol oo qolb ka kooban yahay hospitaalkaas waxa loo bixiyay Mallas Referral Memorial Hospital baa loo bixiyay halkan madaxtooyada kilka horteeda waxa ku ooli jirtay Mallas oo bidaarle taalo Mallas oo bidaarle oo gaalgalay waa ku ooli jiray odagii naartu ka neekin xiligaas ayaa ku ooli jirtay soo qabay bahalow oo soo qabanaya bahalow soo dhaw abal qabade امين وقبو الو السلام عليكم عليكم السلام عبد الرزاق اخو مقلاين سو دhow نادر waa dhawahay naadaraad baad u maasatay maxaad barnaamijka fikirka waa daawanaysa barnaamijka wala fikirka ka dhiibanaad fikirka ka dhiib ها نيو ففالو wanaagsan baad de meesha ka soo muuqdo mar hadii ma caawa Cabdi Maalig dhex joogo jigjiga صح waxa weey dhiirigelin iyo aaminaad xukuumadan cusub iyo madaxweynaha Mustafa dadku ay macnaha ay aaminayaan bay barbila u tahay bal ka waran qabiiladan ka waran Soomaalida ee xilliga Cabdi Ile iska daa inay xil sheegtaan ilaahu jeelasha laynaga daaya goorma jeelka lagu ridi dadkii ku fikiri jiray oo Soomaalida dhan Soomaalida qabiilada Soomaalida deegaanka dago dhan laha oo haddana maanta xil iyo wasiir u wareeray wasiir u waashay wasiir 17 wasiir ma 39 qabiil oo degab ayuu qaybsamaya horta niyo odayga Mustafa kuma raacsanayn inuu xorriyad noocaas dadka siiyo ma garat صح إنه سيدا عبديها في قبتين بريكا حوغا بايستب مايا ودادك للقبت سيو حرية داني waxay tahay iyo حق ها waxa ka qiimo badan intaas oo macnaha qof oo iyo intaas oo qabiilo madaxtooyadii aroor walba la galab walba saawn u tuba waxa ka wanaagsan afar qof oo umada u adeegtan iyo cid ay doonaan baa ka soo jeedaan war xataa qoyska madaxweynaha ka soo jeedaan ma garat dadka waxyaalaha badan oo u qabsoomay ee shacabka maanta u qabsoomay markan war madaxweynaha waxaan ka soo sheekeynay hospitaalka in calanka la soo celiyo in la soo celiyo heesta calanka in la soo celiyo ma taqaanaa in dadka xorriyadii ay helaan in wariyaashii sida Coldoon u soo halgamay ay meesha ay jijiga maanta yimaadaan waxa soo dhan waxa ka soo reeyay xilliga Cabdi Ile waxaan garanayaa ma taqaanaa dadkii magaalada jigjiga degana ee dadkii jigjiga iska laayeen masaakiinta haddaad maanta afar qof suuqa jigjiga dhexdeeda ku leedahay Cabdi uunba qof lacag soo siinayo wuxuu qoranayaan waxa tiraada qurbaanka ka yimid adigu baa suulta lagu soo xiro uunba saas ku qaloocinayo qurbaanka ka yimid oo ana meeshan dhisanayo fooq ma ka dhisayay meesha ka gura ma iga iibi kaama iibin hada tiraada afar qolba meesha iga dhisano ciyaal ma ku qorsada xaga Cabdi uunba waxaan ku huri xaga Cabdi uunba laga guriga waa laga qaadanayo waar imisa masaakiin gurigii laga raray imisa waxaan ku guriyiinta laga raray baadiyaha degay oo guriyihii laga qaatay oo lagu wareejiyo xoog qasab ama ku dhista daba ku dhista ama dhisin lagu
marmarsiya lagaga saaray qof aan dabaq awoodin oo miskiin oo afar ciyaal ama 5 ciyaal ku kursada ama 10 ciyaal ku kursada masaakiin dhibaatada dadkii ku joogay dadkii 8 qolka u seexanay maalin wada jeelka ka sheekinay jeelogaadeen dadkii jeelka magacaantooda loo bixiyay jeelogaadeen iyo jeel hebel loo bixiyay inkastoo cid kasta ku jirtay dadkii ma taqaana saasoo dhan waxaasoo dhan ay ku dhacayeen ba maanta waxa la yiri dadku dadku niyo waxa la dhigi jiray ma umulba ilaa soo dhawaabay war salaam bitaas ku dhacay taas ma aysan warkayn maanta durba ay xasuusteen inay dhadaan waxba naga maqan horta niyo waxa weeye dad badan baa lagu tuntay xuquuqdooda oo aad loo dulmiyay oo waxa weeye hantidoodii xataa niyo la boobay inkastoo dadka kililka iyo ama dowlad deegaanka degani ay dad wanaagsan yihiin oo la xumeeyay ma garatay oo nimankii maamulka ahaa aad iyo aad u dhibaateeyeen oo dadku dad masaakiina oo il kale oo xataa aanay waxba ka soo gelayn may jirin de ana ahayn mushaarka yare macallimiintu qaadanayaan wax alla waxa cunto waxa la xidho iyo waxa la cuno iyo waxa la cabo wuxuu soo digi jiray cabdiile walaalkii min khadar ila la dhigi jiray uu soo digi jiray waxa balkiilalka inta le waxa la xidho iyo waxa la cuno iyo waxa la cabo iyo waxa alla waxa bir hadii musbaar dubbe gaari bajaaj dabadeeda wixii dabada laga gelinay waxaasoo dhan wuxuu soo digi jireen walaashii soo digi jireen ganacsiga dhan baxaafadiisu xubnaa isaguna soo suudu gaajir cid la hadli jirtay ma jiro war maanta dalkii mustafa madaxweyne Soomaaliyeed jecel wuxuu yiri ganacsiga isku furta wajaala ka soo qaata buurmadan ka soo qaata harta sheekha ka soo galiya oo barre ka soo galiya xagga jijiga wajaala ka soo galiya xagga kale ka soo galiya doolacado xagga ka soo galiya feerfeer war waxa lagu yiri ganacsigiina soo galiya dadkiina buuqdo hooyada buuqo aabaha u tag hargeysatay waxa xasuustaanu hadaad wajaale gabadh cado wajaala aad ka soo raacdaan wajaalada gabadh aad ka soo raacdaan gabadh in xataa diyaana haday marsato oo ka timiday jinacsani haday intay jinacsani ka timid marsato waxa lagu dhigi jiray hargeysato wala dili jiray wallahi naasa laga tii garaaci jiray hargeysata lagu dhigi jiray waxaan ku dhiyo dad saas lagu cabsin jiray dad waxa lagu dhigi jiray qofka boorba intuu oo bare tago waxa lagu dhigi jiray laba simkaarla to boorma ninka xaan ka baxay wajaalada waxa lagu jiray laba simkaarla to hargeysata ninka feerfeer xaan ka baxay saas dadka taas iyadoo wixii lagu hayay wuxuu ilaa shadawaa mulba maalinba meel bay maraysaa dadku Soomaaliyeed hadda maanta xamar oo kale waxay marayaan ilaahu muru nabadna siiyo waxan iyo qaraxan iyo shabaab iga kaxay Soomaaliland waxay marayaan ilaahu cadaaladna siiyo nabad way haystaan iyagu maanta nabad way haystaan waxay marayaan ilaahayow mar uun xor ad noqotaan mar uun jeelka goormaad waxaan xasuustaa yar aanu qaraaba ahayn oo agteeda degana oo iska ciyaalka xaafadda iska ciyaal suuqa intuu oo gar la baxay oo quraankii 30kii xiftiyay oo ma taqaana timiis iska xiiray oo ayuu madrasad isagoo dhigay oo gabadh guursaday bay intay maalinkii iskaga qaarinta iskaga caawdadeen bay ciyaalka dhigeen laba isbuuc bay gurigiisa dul fadhiyeen labada isbuuc bay bambaynta ku gureen iyo hub bay iska lahaayeen hubba laga soo saaray isbuucii dambe siina hubba laga soo saaray gurigiisa iyo miinooyin baa ku aasnaa inta iyo waxyaalo isbuucii dhigeen iga shaqeynayeen ku qeyliyeen niman baa laba isbuuc guriga ilaalin wala guriga ilaalinayo guriga waxaan ka baahnaday waxa soo xasuustay meel dhoweeyo telefishinka Ethiopia inta laga soo deynay Cabdi la gurigiisa waxa lagu soo qabtay aakayaal iyo waxa lagu soo qabtay ladaha hubba lagu soo qabtay la dhigi teebaan xasuustay oramada haday rabtay iyada u dhigtay oo nafsigu un baa socda kooxid hore ugu soco aad iyo aad niyow horta jigjiga dulmi badan baa horta ka jirayay waqtiyada qaar aan soo joogay xataa waxaan arkay qolo xabashi ahayd oo gurigan ka deganayn hal qol fikraysanay ayaa qolo qurba joogo ku xidhnayd aduu madaxweynihii hore Cabdi Iilay baa siraandi buu ku yaalay centerku ku yaalay magaalada Magaray agaarka habaanuhu ahaa markaa qolaa u timiday board baa inta fooq la iskaga soo sawirtay baa lagu hortaagto lagu yiri niyow meesha ka kaca lacagteerna waa laydin qaybinayaaba xogaagii neerna waa laydin qiimeynayaaba lagu yiri dhagayso ninkii
ninkii adu wuu diiday dadkii meeshii baa lagu yiri ka dareera nin guriga deganaa isna oo wakaalada biyaha ka shaqayn jiray unbaa isna sheegtay gurigii oo isna fooq soo sawirtay oo dhagax buurkay mee dakiruuba ku galayba ninkaas oo sheekada aan weli googlaha ninkii baaba ya wuxuu ku yiri niyo ani meesha oo laga saaraya gurigii macnaha waan iibinaya ka guuray buu nagu yiri ma garat in madariyo caaway soo qabto oo odayaay warana ku soo qabanaya nin baa soo qabadahay war waxaan ku yiri googlaha uu nin ay dhageysto hawl wax iga yaabiyay baan kuu sheegayaa ay dhageyso ninkii bay iyo isdacweeyeen kii kale qoladeedii la ogeysiinayay nin kamid ah baa gurigaanaaba loo soo maxkamadda buu tago hooyadeeyo waqtigii dhargii ugu dambeysay baaban gurigii baan yaa wuxuu yiri waqtigaas la naga dhacay hooyadeeyo waqtiga macnaha waqtigii dhargii dhulku haystay igu geeriyo nolol mid ay ku sugan tahay aan warba ka haynin baan halkan kaga taguud oo raqahayd waqtiga war hooyooyinku xabashi intaa maqlay ka waran oo halkan maxkamadii cidda fadhidanaad ogtahay ya odayga habeen madow baa alaabtiisa gurtay marka waxyaabaha qaar gelinka dambena waxaa iman jiray qoladii garab casa iman jirto iyo haadhig gelinka horena waxaa imanayay liyu booliski iyo kolba qolaa la eriyan jiray haddana marka tiyo sidaaya oo macnaha xabashida iyo ay wanaagsan tahay in dhulka laga saaro oon dee nin xabashi ama orama ahaada ama tigre ahaada ama xabashi ahaada aanu dee jigjigo u dhalanin oo guryahan waqtigii dhargii ay qabsadeen badankooda haddana dadkii deganaa ee soomaalida ahaa ee deegaankii ku dhashay ee u dhashay baa iyaga laftirkooga sidaa loo gelay dadkii cadaaladda saas u raadinayay iyo goorma lagu xidhi hooyadii xidhnayd ee aabihii xidhnaaye reerkoodu dhan wada xidhnaayeen goorma lagu xidhi dowladda waxbaa ka sheegay facebook wax kusoo qori war waxa lagu xidhi jiray adiga oo ogaadeena walaalka oo bartira gabadha uu qabo egfiri gabadha uu qabo oo isaaqa wiil ay saaxiiba yihiin oo Finland jooga ayaa wuxuu leeg u saaray nin gariya oo jarmalka jooga ayuu leeg u saaray baa dadka lagu xidhay halkaasi marisi baasas lagu xidhay ayagoo tabtaas marayo oo saas qaabkaas loo goysan jiray oo qaabkaas fashion xulul loo dhaqmay oo calankii laga bedelay oo tikre laga dhigay oo inta la soo istaagay dhigi jiray aaba malas noolaado kulliga wada malas baan هذا كورة مدة صاحب بنها والخذ اللي يجوا هلا في حساب أنا كولج جيجي أنا ودينا وحا بورك وحا كقرنا ملص مدي منو هذا الخلون شجنا يموتن بيورن شري أنا وجيس ولا بلا أنت تذكر لو دي بي أنت لو دي بي ما عرفتي شمع عندك قال هذا مركز أنت لو حسوا أنت لو دي بي دي شجنا يموتهم جيس مردنتو نبي محمد بس الله عليه وسلم أنت يو عد والب أوقتها هي وجيرده حقتها هي إنك بيني مرة من عاو نيكي عبد المالك وكاتشيك شوقي دماشاده haddii uu muqdisho tagana waad aragtay sida loo soo dhaweeyo hadduu laascaano tago waad iga arkay bilaa staff ku socdo dhulka saaxiibkaa muuse loo kal ilaahay baan ku daari hadduu malag dhawaaqayo miidhaama dhegma ya cabdimaalig sheekh waar saaxiibkaa muuse loo kal baan ku yidhi dee dadka inuu handaraabkaa un loogu wada jiruu doonaya cabdimaalig waa international oo adiga arkaya caawa halkuu joogo ma garan lagamana yaabo cabdimaalig sida loo soo dhaweeyey loo soo dhaweeyey isagoo madaxweyne sheeganaya kamarad la'aan baa haysa iimaanka laga qaado kamarada cabdimaalig ii soo qaado maaldoodna iiba leeyahay ma garatay markaa niyo soomaalidu iyadaa isburan iyo hargeysa isagoo jooga lagu haystay oo mataqaantood loo soo xidhay ayaa maanta jigjiga jooga iyagii ayaa wiilkoodii la joogi kari laayay oo xorriyad iyo muxurunta u sheegay lagu haystaa war qori ma haysto qori ma qaadan ma bixin duurka ma gelin qofka wax baraan war nagada nimankaas barnaamij kuma jiraan nimankaas barnaamij gaara uun buu muuse iyo naadigiisu leeyihiin nagadaas xertaas haye maya sababta cabdimaalig keentay iyo sababta uu ku yimid waa nin la dhibaataynayo xaaskiisii iyo gurigiisii iyo waalidkiisii laga soo riyay iyo ubadkiisii Soomaaliya cabdimaalig wuxuu ahaa geesi nin haddii ay soomaalida deegaanka soomaalidu haddii ay abaal leedahay
abaal nin galaba la yidhi waa la arkaa laakiin nin guda lama waa role model abaal waa nin dhalinyarada lahaa xilli inay ku daydaan loo baahan yahay xilli iyo cabdi iida iyo tigreeg ay xoog ku lahaayeen Itoobiya oo ay adag tahay iman la dhahaba Soomaalida mataqaanaa deegaanka Soomaalida kaliya in la dhaho ama Soomaali galbeedba in la dhaho xilli nooca ay noloshu u adkeyd ayuu Cabdi Maalig mataqaanaa aad ugu soo dagaalamay ayuu aad uga hadlay ayuu ona lafta soo gelin jiray live-ka soo gelin jiray dadka ka hadla soo gelin jiray dadka uu mataqaanaa aad barnaamijyo oo la adag ku galay xilli ay telefishinadu ay ku qaadan jireen lacag ay ku qaadan jireen sida Universal TV-gan mataqaanaa TV-gan oo garoobada loogu qabto ninkada loogu qabto TV-gaas iyo kii afka dameeraha lahaa la dhihi jiray muxuu ahaa kan oo timaha adkaa oo cadooshkii Gambiya iyo waxyaalaha odaygii Samuel Umtiti weeka odaygii arkaa waa BBC-dina laga eriyay BBC maxaa laga eriyaa xataa Maxamed Anikii la dhigi jiray qona lafta in xabada lagu hayay ninka sheekada inka ku wareystay iyo xabad lagu hayay nin BBC waa dambiile ninkaas waa nin waa dil baarinka cadoosh British in dabada laga toogto weeyaan nin ragaa madaxa laga toogto Mareykan ba BBC waa isaga fudud laga toogto British Broadcasting Center baa la soo gaabsay ayuu BBC-da Ingiriis baa iskale oo meel Ingiriis iskale yahay ingiriiskii baa yaabay weli kama soo dhicin bal taariikhda qof qor lagu hayo in BBC-da laga wareysto oo ninka soo qalqaaliyay sheekadana wuxuu ahaa ninkaas oo lacag ku qaadan jiray mid dhawid xataa Cabdi baa jaranjar laga tuuri hooyadii wareysta Universal baa wareystay hooyo xageed nagala soo hadlaysa inankii BT buu ka jaray oo jaranjaradii waxaan soo tago oo fresh waan ku fresh buu caadi loo dhigay oo raaxaysanayaa ninkii niyow ninkaasi wuxuu cadaystay macnaha inuu Soomaali adu dadkiisa uu ka soo jeeday iyo Soomaalida kaleba uu Itoobiya u duleeyay buu ku faanayay oo ula 12 sano baan dadkayga iyo Soomaali oo dhan idin dhibaateynay magaciina sii daaya buu yiri ma garat war ninkaas waa Yahuudi weeyaan Soomaali ma aha inamana matalo nin Tigraameesha keensaday buu ahaa kuwa qotida war Oromadan hadda عدوش أفطال أنا وحراعي عبدي لي وراعي BBC ولا جيلي بالكيسي دولكو ودعي ضدك عبدي تاجر تري عبدي لي براعي Oramadan hadda Oramadan laftirkoogu way tagayaan qoladan qarqar Muuse Meedel Oramadan laftirkooga looma baana waxaan waa baysta maanta heestii iyo astaantii calankii Soomaaliyeed iyo ummadiyo isku faraxsan oo saal isku dhex socdo adiga arkaya inta haddayna bari waa iman doonta insha Allah laakiin dadka Itoobiyaanimo iyo waxa laabta u sii daayay waxa la yahay ma taqaana danteenu baynu meeshan ee Ilaahay de kitaab kuma taalo inaynu Itoobiya ka tirsanahay kilku Itoobiya kama mid hadda Ilaahay mu oranin ma garat waa awood mustacmar iyo musuqmaasuq baa ma aragtay xadka meesha lagu keenay dadku waa Soomaali dhulkuna waa Soomaali waqtigiisu sugaya insha Allah isku duubnaadan leeyahay dadkana أنا الآن بعد ما سنتي وقتي يغير دور قفان سوق قبان ونقبح إن شاء الله آد بنكو سلامين هذا آد بن في واي سوق آد بنكو سلامين هذه أصلا وارني ما يهو وحويان أرت Soomaalida dadkan deegaanka ku nool horta wax weeyaan caaw wuxuu sheego baan meesha safartay inaan soo aqli celi war Ilaahay baa idin ku dhaarshay dadku sidii ma taqaan loo lahaa imka ilmaha yar ciyaalka hadii meel lagu hayo oo xidhin ka bixi guriga ka bixin waxba ku qaniini waraabaha oo carruurta yar waxa lagu siixiyaa waraaba alla dhurwaag lagu siixiyaa mugta hadii ilmaha yar ha bixin ha jabin ha dhicin waa lagu hayo maaragtay ilmaha yar ma socod baranayo dadkan deegaanku waa dad maskaxda laga galay oo ha bixin ha sheegina ha hadlina ha qufcina yaa dhoosay yaa hindhisay maxaa uraya maxaa baxay maxaa waa dad khaaqda looga sheekeynay oo balaayo looga sheekeynay oo maskaxdooda u gumeys iyo balaayo tagay 100,000 oo sano baa la gumeysanay war maskaxda inaad xor ka noqotaan isku daya war xoog war mustaqbalkiina iyo go'aankiina iyo dadnimadiina iyo ahaashihiina iyo ma taqaana inaad dad jiro oo isku kalsoon oo dhul leh oo dad leh oo ma taqaana dal leh oo calan leh oo warana ku soo qabanaya Caida Joojiniyo Cabdullaahi
dad mataqaanaa calan leh oo dhul leh oo isku kalsoon oo mataqaanaa sharaf leh oo hooyada iyo walaasha intay xijaabtaan barta ay wax sida laandheeraha u maraan oo aabaha uu barta salaada kusoo tukado oo halkaas salaada waxaan kuli khudbada saa doonta aad uga jeediso oo mataqaanaa aad halkaa ku khudbayso oo mataqaanaa dhulkaaga aad mataqaanaa cashuurtooda aad laamidaada ku dhisato ood gurigaaga oo qashigaaga ku gurto ood saa nolol haddaad inaad u samaysato haddaad rabto oo adigu qof noqoto oo dad noqoto ood iskaafida haddaad noqoto inaad rabto mid iska daaya ilmaha reer anu mid baan ka yaabay dadka deegaanka waxaan isii keli waxa loo sheekeeyey waxa looga sheekeeyey hadda hadraawi baa wuxuu yidhi ilaahay cimriga u dheereeya odayga hadraawi la dhaha banka ninkaas libaax wey wuxuu ku leeyahay gaalada haddaad u tagto kuma odhanayo buu ku leeyahay moogtahay wuxuu ku odhanayaa un halkan ay ka baxday halkan ay ka baxday anaa aqaana kan kale halkan ku disi kan kale halkan ku disi haddaad dee cilmi aad ku beenisan mataqaanid oo wuxuu ku leeyahay ma odhanaysid adig waa isagu dhegeyso anigu u dhegeystaba ku odhanaya ku leeyahay bale dadka deegaanka soomaalida mid baa inii sheegaya dadkaas keligood meel ma istaagi karaan hadda dhammaantood intan xilligan mataqaana nin walba wuxuu soo qoraya mataqaana fifa amaara orama ha dhacdo god damn fifa ahmar war ahmaaradu 100,000 oo sano bay soo gumaysanaysa deegaanka soo gumaysanaysa tigreeguna intaas la dhowr iyo 10 sano soo gumaysanay oromadiiba baanti oromay ahmaareen oo kala niigsaa idigu ka dhex baxa tiina ka hadla oo soo qabanaya anigan oo soo qabanaya cabdullaahi qabanayo markaas saacadaha ka dhamaadeen qabaniyo caawa dhan wadagii soo qabaday war qabo cabdullaahi aba soo dhow ar qabanay waanu dhownahay soo dhownaada maxaad haysaa inaad rawa ma sha Allah alxamdulillah barnaamij maxaad kaga qabanaysaa aad baan ku salaamaya soo dhownaada dadku soo dhow de kule barnaamijkan aamin axmed iyo adigo cabdirasaaq aba kule way iga horeyseen ma garanaysaa صح kule wax badan iyo dhibaatooyin iyo hagardaayin badan oo meeshan daymiga la dhahdo kilka shanaad ka soo dhacay baad ka sheekeynaysiin صح de kule annaga waxaan si dhowr waxaad u soo joogtay ka sheekee ama de la wadaag de meesha ummad wada joogto صح waxaan ku qaslay aaminax inaga daa taas anu waxaan u soo joogay anu horta dhagax buur baa ku dhashay anu صح waxaan u soo joognay de aaminkaas horta inuu jigjiga iyo aw bare kulli aamin aad baa saaxiib u nahay laakiin aw bare iyo jigjiga meel ku dhashay garan maayo kulli meelahaas ku dhashay isagu moogta inaad anu dhagax buur baa ku dhashay runtii waxaan cabdirasaaq u soo joogay inaad arday waxyaabo aad u dhibaato badan in badan waa la iga sheekiyay waan u ogaa صح imiga cabdi maxamuud cumar isagu gabood fallada iyo waxa uu geystay de wax bartay un bay iyaguna ahay laakiin wax bartay baa ka sii horeeyay moogta صح cabdi maxamuud cumar isagu wuxuu keenay hablaha la kubsado naag qurux badan oo ninkan ma macallin ba kan kale muxuu yahay waa madax xafiseed new police baan oo laga qaato isagu keenay صح laakiin anu dhagax buur baan ka soo jeedaa walaalo oo dhagax buur anaga waxaan nagu soo horeeyay صح dhargiga anaga wax ugu xumaan noo geystay صح hadda ka hor aabahay wuxuu iga sheekay ama intii ugu badnayd aan ka soo gaadhay dee dhagax buur meel ceel la yidhaahdo ceel jugsi oo geelu ka cabo ama xooluhu ka cabaan baa jira صح niman dhargiya oo markaa tuuto oo surwaal yar oo gaaban iyo tuuto wata baa noo iman jiray moogta صح marka dameeraha biyaha lagu dhaansan jiray dameerada waa fuuli jireen dameerta waa wasiyeen ba moogta dameerahay wasi jireen axmaartu dhargigu dameeraha wasi jireen صح midda kale dameertay ogaadeen waagtay way wasi jireen maxaa sheegtay yaan kuu sheegay dhegeysa macnaha horta dameer walba reerka ay kasoo jeeda wejigoogay leedahay moogta cilmiga dameero reeraha u kala eegiin adaaba war haya balbad
أنا كوهايا صح dameertu hadday halkaa wejiga tima ku leedahay halkaa wejiga tima dhaadheer ku leedahay inaad yar jaarse u eg tahay hadday halkaa timo dhaadheer ku leedahay dameertaasi waa jaarsal dameertu hadday halkaa wejiga tima dhaadheer oo saa usoo taagan ku leedahay waa jaarsa iska leh sax haddii marka ama qof ama shay kaloo xoolay usoo dhawaado ay haraatisaa ugu dhufatana samaroon baa iska leh qofkii soo dhawaada hadday haraatado haa sax xildhibaankii dameeraha haddii ay aragto askari direys xidhan oy sanka la raacdana ogaadeen baa iska leh hooga sankii la raacisay dameerkaas oo wax la baray dee dameeraha ogaada xataa iyaga la baray waxaan aan kugu warramaya sax dameeraha ogaadiin askariga xabashiga way yaqaanaan oo askariga xabashiga mana haraatiyaan waxna ku samayn maayaan laakiin sankay la raacaan oo waa cilmi jira taasi iyadu sax marka inaad arkaa horta dhagax buur meesha ku noolaa anu deberiga anu deegaanka kama soo jeedo laakiin waa ku dhashay waana ku soo barbaaray moogta sax waxa jiray dameero badan oo berigii dambe dee duqoobay ama isirkoogii joogay oo marka ceelka dee raggu shubayaan ama geel laga waraabinaya uun ragga uun dibdib ugu soo baxaa uun war waxay maxay ahayd ilaa show waxbay baratay sax marka deegaanku aarto dhibaato iyo gabood fallo heer dameeraha dee bugu iska soo gaadhay ma garanaysaa sax imigana barnaamijkii kale aan kusoo noqdo barnaamij kusoo noqoniyo barnaamijka waxaad kusoo noqotaa ah dadku gabood fallada iyo wixii dhacayay intoonan dib loogu laaban oo kana la sameeyay kan la sameeyay intoo la dhihin wixii dhacayay dadka ku dhacayay iyadoo cid walba ay ka dheregsan tahay maanta dadka xorriyadda helay ee mataqaanaa xil iyo waxaas ku dagaalamaya iyo dadka kale deriska ee ilaa hadda iyaguna kala qoqob iyo u hanqal taagay inay dadkii tigraagii iyo axmaartii baktiday inay hadda ilaa hadda dadka ugu hanjabaan oo ugu bootayaan ay ku xidhaan maxaa arrinka ka leedahay iyo waxyaalaha u qabsoomay madaxweynaha deegaanka ee uu sharafta uu soo celiyay deegaanka cabdirasaaq horta in aad baa kuu salaamay arrinka waxaan ka odhan lahaa mataqaana horta xorriyaddan maanta lagu hadlayo shalay lama hayn sax oo shalay may jirin oo shalay suldaan iyo oday hadli karaa muu jirin inaan dhalinyar iyo aqoonyahan iska daa isaga warkiisa oo qaarna jeel bay ku jireen qaarna dee hawshooda inaga daaba sax tan reeraha markaan usoo noqdo dee cadaalad darro way jirtaa imigoo nidaamkan cusub ay jira maadaama aanay barnaamij hore iyo experience hore aanay ka lahayn oo khibrad hore u lahayn meesha wixii ka jira aan u lahayn kulli cadaalad darro way sameeyeen sax waxaan odhan lahaa anuu madaxweynaha iyo nidaamkan cusub aanan la hadlayn reeruhu say deegaanka u kala leeyihiin iyo say u kala awood badan yihiin intaba waa las ogaa sax dee reerana meel baa lagu yaqaanay reera meel baa lagu yaqaanay reera meel baa lagu yaqaanay reera qaab baa lagu yaqaanay waxaan leeyahay inay reeruhu iyagu horta isxaliyaan baa qurux badan sax oo iyagu dantooda ka tashadaan ha reeruhu waa iswada yaqaanaan oo nidaam ahaan aqoon ahaan garaad ahaan iyo talis ahaan iyo deegaan ahaanba waa iswada yaqaanaan DDSI sax marka waxaan leeyahay reerahan cusub ee maanta munaafaqada iyo waxaan la fasaxay dee ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay reer walba meeshiisii ku eegaado marka koobaad sax marka labaadna aayihii iyo dantii ha laga wada taliyo dimuqraadiyadan iyo codkan iyo xornimada ay hesheen shalay maynaan hayn cid ilaa shalay cid mataqaanaa dhigi kartay haddii jidka dhexdeeda lagu koro cid iga tag dhigi kartay ma jirin maantana waxa qof waliba wuxuu raadinaya والله بالله والله إني نجر وحنا نسوي شيء عبد الشكور عبد الرزاق وإن وحنا نسوي شيء ما تقانا قبل ير أو دوكس سريع كذا لوجو صار دراي أو أنتي دوكس سريع كذا دقتي نيو بوليس كله أبابولي قبل مركا نيو بوليس كأوش قيسوا ده كون وحوس السمين جري عيد باكو تري نادري إسكان حلو أو مركا متحتوي ده كتر سنة صح تريسكي بالله حراي waxay tiri madaxtooyadan ka shaqeeya gal miskiin waxay tiri hebel baa halka jooga wax iga soo qaado de albaabkii baa laga furay madaxtooyadii jijiga hore de qofkii garanaya moogta shirqool bay ahayd
midda kale gabdhuhu new bolis waxay lahaayeen gabdho new bolis oo gabdhaha kale ee Soomaaliyeed ee masaakiinta u shirqoola gudihii markay madaxtooyada u gashay saasa jeebka loogu geliyay bambo oo la yidhi way qarxinaysay cabdiile lama odhan jirin berigaase waxaa la yidhi cabdi maxamuud curan aabbay qarxinaysaa la yidhi iyaduu arkayo oo itusa yidhi oo la arkaya lagu horkubsaday waxaasi dee waxaan ka sheekayn karna taasi maaha anugu maanta qodobkaa imiga iyo qorshaha imiga aan waqtiga ugu yar aan ka baxaan rabaayo waxaan dhowr qofna inaan siiyaan rabaa soo muhiimadda hadalka usoo deg muhiimadda hadalka waxaan odhan lahaa reer DDSI qaabkoogii iyo nidaamkoogii qabiiladu ay ku dhaqmi jireen way yaqaanaan ninkan maanta haystaa nin experience leh ma aha waxaan leeyahay qabiiladu sidii ay isku ixtiraami jireen ay isku ixtiraamaan cabdirasaaq waa ku salaamaya intaasaan dhammaan soomaalida degan DDSI odhan lahaa ayo sax aad u maadsay wiilkaas waxa weeye dadka caytamaya iska caytamaan iska daa qof walba wuxuu reebaha sheego iska neefsado qof walba ikhtiyaar buu leeyahay hadalkiisa ma taqaanaa meeshan qof walba Facebook anaga iskale qof walba waxaad rabto sheeg waxaad rabto wixii dhaqanka iyo diinta ma taqaanaa wax dhimayo naga ilaaliyo inaad qofka hooyadii iyo ma taqaanaa familkiisa iyo diintiisa wax ka sheegtaan intaas oo naga ilaaliyo laakiin qofka karbaash inaad qofka intaad karbaashtaan aniga igana dhaho inaad kalbad naasaha kaga qabataan qofka waxba qofna haw joojinina qofna haw turina laakiin waxa weeyaan waxyaalahaas inaga ilaaliya inaad barnaamijka ku socono soo dhaweynta coldoon oo caawa aan loo kala hadhin maanta magaalada qabri bayax waxaa kaga hortagay in ka badan 500 oo qof jigjiga maanta waxaa kaga hortagay in kun qof ku dhow bari waxaa la filayaa in magaalada jigjiga uu mataqaanaa uu dadka mataqaanaa uu la hadlo mataqaanaa uu la hadlo ayaa la rajeynaya marka dhammaantiin waxaan mataqaanaa ciddii ka qayb qaadanaysa ee la soo qabanaya waa la soo qabanaya ciddii mataqaanaa nayo dhaqul wuxuu doonaa soo qoro mataqaanaa barnaamijkeena markaan ku socono coldoon oo maanta lagu soo dhaweeyay magaalada iyo waxaan ka hadlaynay mataqaanaa isbedelada deegaanka ka dhacaya sida qabiiladu maanta ay weli uga dhigan tahay wasiir shalayna haddii halayni wada waso la dhaho soo xaadiriya waa la isurgufayaa haddii la idhaha maaragta mid kasta isagoo diyaaru imaanaya waa la isurgufayaa haddii la idhahdo maantana wasiir bay kaga dhigtay waar ninba ile maalinba meel bay noloshu marasaaye inay waa ku soo qabanayaaye ninkaa soo qabale waa ku soo qabanaya soo qabso luuqa madow ka soo السلام عليكم calaykum salaam luuqa madow ka soo baxa أركو كسو هنا ديروا في عنتي و يحلي الدمبيس كتي yaku wajahada ku ah شقرنا ير دوري ayo wajahada ku ah way soco waxaa maanta laga hadlayaa bal iyo dabage barnaamijku waxa laga hadlayay mataqaanaa in isbedelada ka dhacay deegaanka Soomaalidaas mataqaanaa Soomaali galbeed ee mataqaanaa caasimadda ay jijiga u tahay madaxweynaha waxyaalo badan bedelay waxyaalo badan oo Tigreegii iyo isbitaalkii ugu weynaa meeshaas oo Malas la dhihi jiray oo gaalkii Bakti oo Tigreega ku yaalay oo laga bedelay magacii oo Suldaan Soomaali loogu magac daray in calankii la soo celiyay in mataqaanaa ummadii xorriyad la siiyay jeelkii ugu weynaa oo fircoon dadka ku cadaabi jiray oo dadka waxaan dumarka naasaas ibilka loo dhigi jiray oo ragga xiliyaha qiblada laga qaban jiray oo nooca ahaa la bedelay aan waxaan xasuustaa ku yaro saaxiibanahay oo adeerkii inta halkaas dismiss laga geliyay dismisska maaragtay oo boolasha lagu furo halkaa inta laga geliyay bartaa ishaagtir inta laga geliya bartaa laga soo saaray marka niyo waxaasoo dhan way soo dhaceen laakiin dadku maanta waxaad u moodaaba in xanuunkiiba uusan u muuqanin ay u muuqato uun mataqaanaa wasiir iyo ku xigeen walaal waa runtaa cabdirasaaqow aad iyo aad baad waa run adaa ku taagan waxaa la yidhi horta niyo soomaalidu been way sheegtaa been ma mahmahdaa la yidhi sax nimankan dadkan Soomaaliyeed waxa la yiri kal xishoodo male kal cabsooday leeyihiin sax waxaan maanta aad haddaad qabyaalad iyo qurun iyo reernimo laga sheekaynayo aad maqasho sax
waxa meesha taalla inuu bay didiila arkayaan oo waa iftiin bay haystaan صح marka waxaanoo qayli iyo buuqan iyo aflagaadadan iyo jigjigadan laga dhex hadlaye social mediahiiba gaadhee laga leeyahay hebel baa xun iyo reer hebel baa xuni in adeer waa wax ilaahay loogu mahadiyo inuu qof soomaaliyeed jigjiga waxaa ka dhex yidhaahdaa الحمد لله إني دهان بهاد إنت تيجي هبل بابا حن بابا مدحوينها حن يوسير كإيه هبل بابا ماشي أنا وحبو ودن كريم إن لقد دهان الحمد لله بهاد إني دهان والصلاة هالمرة يتوكدان بالروب طنت سيدو توكجرين وتوكدان war adaa ku haystee in adeer waxa weeyaan roob doontaa intii ka badnayd baa tukanayseen labadan qof ee dhawaqoogiina soo gaadhaya waa adu horumarkunbay inay horumarka ka mid tahaan anuu arkayaa joogto waxa munaafaqado dhan qurbo joog baa wada maxallada ku dhacday waa qurbe waa taasaan beenahayn dadkan stressku hayaa meel ku neefsanaya dalkii inaad dhibaatadu dalkaasi soo maray iyo gumaysiga iyo waxa yaalay nin walba waa ogaan karaa maantana baabuurka ama hargeysa ka baxa ama boorama jigjigu toos u galaa amnigiisoo quraa la baadhaya intaas dadkii aan 20 sano aan is arag maanta si dhib yar bay isku arkaan صح ما أنت قف سواق مستوقعي وحي لو يديني ولا كعفرسيني ولا ده يا الشباب وحي مجنون waar wixii ma jiro dad baa beerahoogii intuu xad kala maray intuu beertoodii xad kala maray ayaa lagu haystay dibigu muxuu xaggan u daaqayaa hadda waa dibi beertiisii daaqaya صح ayaa lalahaa xaggaa sare ku hayde oo hadduu soo tallaabo lalahaa allah waad iibgeynaysaa hadda waa dibi daaqayaa lagu xidhayay neefkan waad iibgeynaysay oo somaliland baad ka iibgeynaysay صح ilaahay wacaasoo kale inaguma soo celiyo waa dhargigii la maqli jiray ahayd maxaad dhiilahay dadka shacabka maxaad u soo jeedin lahayd waxaan u soo jeedin lahaa maantuu wahabkii ka kacay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya maantuu ilaahay nasrigii u soo hereeg maalinba dee waa waxay ay u soo samrayeen iyo dulmigii bay heleen wuxuuna hadduu niyow diinta islaamka gaadho ilaahay baa ilaashanaya diintani dulmi kuma sii waaro masaajidada maalin dhaweyd culimada waxaa arkay culimada madaxweynaha xilli shiriyeen waxaa la yidhi mid taliyaan noo soo galay buu yidhi masaajidka intuu soo galay ayaa yar xirago oo kuwa dadka masaajidka qur-aanka ku akhriya ayaa mid isagoo qur-aan akhriyaya baa waxa lagu yidhi qur-aan akhri baa lagu yidhi qur-aankiibuu isagoo qur-aankii sidaa ugu nuxnuxsan iyo barteeda dhigiga la arkay markaasaa lagu leeyahay markaasaa loo hanjabo oo loo bootay mid kale baa markuu ayaa lagu yidhi akhri qur-aanka wuxuu arkay marka ninkii kale in mataqaana isagoo qur-aankii markuu si toos u akhriyay in loo hanjabay uu arkay qur-aankii marka aayaddii xagga hore tii dambe istaasku doo marmariyey baa layidhi markaasaa lagu yidhi sax libaax bata waka qur-aankaa rabnaa baa lagu yidhi baa layidhi wabal waxaa eega subxaan allah culimadii gaadhay oo culimadii masaajidadii dadkii culimadii wallaahi culimadaan wada garanaya masaajidada nagu tujin jirta dhammaantood way tegeen wax ikismaayo gala wax xaggan iyo boram iyo hargeysa gala wax xamar aada nairobi aada iyo wax wixii kale ma taqaanaa waxa masaajidada iyo qolyahan maaragto yoo yartaan dee heydeye qolyahan timaha weyn maaragto oo iska dirgaxleeyo oo iska marqaamo oo maba diidinba nimankaa marqaamayaa meesha ku hadhay ee aabba cabdida hayay qolyahaasaa meesha lagu wareejiyey marka saaxiibniyahow aad baa fikirkaa kaaga mahad celinaya waxaan rabaa inaan kasii baxo barnaamijka waayahay aad iyo aad baa kuu salaamaya dadkaana wanaag baynu u rajaynaynaa ninkaa cabdimaalik muuse codoon aan kusoo noqdee waa nin soomaali buyuura waa soomaalidii la arki jiray gobgobi dhashay weeyaan ninkaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in si weyn shacabka deegaanka soomaalidu etoobiyana u soo dhoweeyo ayaan ku boorinaya waradna aad iyo aad baa kuu salaamaya iyo walaalo aad baan kaaga qaaday aad baad mahadsantahay aad baan idin salaamaya dhammaantiin waxa weeye waad ku mahadsantihiin sida qurux badan nooga qayb qaadanaysaan hal qof iyo laba haddaan barnaamijka siin karno dooda qofki iyo laba hadduu farta soo taaga barnaamijka dooda siin karno waa siinna haddaan siin kari weynina barnaamijka ma sii wadayo waa kasii bixi rabaa waa kasii dhici rabaa haddii qof iyo laba uu rabo dooda inuu ka qayb qaato farta soo taago oo wixii uu ka qabo dadkaas uu ku kordhin karo wixii tala uu dadka u hayo uu ku kordhin karo iyar
intaad mataqaanaa qof intuu mataqaanaa aad hadlasaan in yar haddaba anana naga dhex galo waxaa jirta mataqaanaa tala haddaan madaxweynaha anu haddaan maanta tala haddiiba maanta laygu dhahaa tala in yar si haddii tala in yar si laygu dhaho nimanka la taliyayaasha madaxweynaha waxaan dhihi lahaa deg dega ka daaya madaxweynahaas waa nin fiican waa nin weli aan cudurka siyaasaddu gaadhin waa nin sida aan noqon farmaajo iyo khayre iyo siiraanyi muxuu ahaa ninkii siiraanya tagbe kan muuse shaani iyo ismaaciil mafeedhe iyo cabdiweli miyoneeska calooshooyinle puntland haysta iyo waaraha jiiska iyo axmed axmed dhuxulle axmed kan kismaayo haysta waa nin aan saas noqono weli waa nin siyaasadii qarmuunka uusan calooshiisa degino wacyaal facebook buu xataa iska yiho facebookiisii wax iskaga soo qorqortaa waxbuu iska sheer garaystaa waa nin iska niyad fiican laa hadoo soomaalida annaga loo hanjin maayan loo batno facebook staatusidiisii baa u kala shidan hawshiisa iska wataa waa nin niyad fiican waa nin qalbi wanaagsan weli anuu sida iga muuqata aqoon malihide anuu isma naqaano wixii kale ilaahay baa ogyahay sida ma taqaana dadka ula dhaqmaya hadda waa nin niyad fiican waxaa soo qabanaya shacayba waxaa soo qabanaya ninka jimcaale hal mar waxaa soo qabanaya jimcaale adna rooday soo qabanaya walaal jimcaale soo dhow gudoomiye war aad baan mas-uul ku salaamaya war waa khadkaa ku dhegay lagoma khadkaa ku dhigay ninkaas waxa soo qabanaya rooda gabadhaas haddaan hadday noo suuro gasho rooda qaba rooda cabdi xakiin saciid rooda soo dhow qabo rawday qabo rawday sorwaayad ku jirtaa niyo naabshiina quweyd aad baan idin salaamaya asxaabta qaaliga meel kastoo dunida fay ka joogtaan walaalkiin cabdirasaaq daahir oo inala saman ku waara peace and love khayr baan rajaynaya caafimaad peace and love